agaasime Kofi gabdhaha walaalaha meeshan fadhiya adeerada iyo walaalahay bahda saxaafadda dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Salaan kadib waan kaga tacsiinaynaa dhabkeenu ku dhacay aad iyo aad aan uga xunnahay in aad soo kacdiin ama saaka la kulantiin in gurihiina la dumiyey markaad damacdeen inaad cabirtiin shucuurkiinana laydin garaacay laydin jirdilay qaar xabsiyo ay jiraan intiina halkan aad timid aad ka soo badbaadeen aad iyo aad uga xunnahay aad iyo aad aan kaga tacsiinaynaa. dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan wada ognahay baahida iyo sida loogu ooman yahay dowladnimo wixii laga soo maray hadda waxa yaala ama dowladnimada hadda jirta waxa laga soo maray iyo sida loogu soo dhul jiifay iyo inta qof oo u dhimatay iyo inta qof oo u dhaawacantay iyo inta qof oo u dhibaataysan oo maanta filaysa inay harsato hooska dowladnimada iyo cadaaladdeeda. waa nasiib darro maanta dadkii filayay inay harsadaan hooska cadaaladda in ay la kulmaan guryahooda in lagala baxo ayadoon loo samaynin wax badiil ah meel dib u dejin aan loo samaynin mataqaanaa waxay ku guuraan lagala hadlin habeen madow guryahooda lagu soo dhaco runtii arrin aad iyo aad looga xumaado. dadka Soomaalida iyo dowladnimada waxaa ku dhex jira cadaalad darro waxaa ku dhex jira dulmi waxaa ku dhex jira takrifal. dadkan halkan fadhiyo oo u timaadeen awood gaar oo ay leeyihiin ma jirto laakiin waxay qaateen inay dulumka hor istaagaan inta Ilaahay karaan siiyey inay qofka daalimka ee ku takrifalaya awoodii loo doortay ee shalay halkan la fadhiyey ama ka horreeyey inay dhahaan ka dah. qof Soomaali ah oo waxaan intaysan dhicin ka fikiray ama caqligiisa ay ku soo dhacday in dhul dowladu gadanayso iibinayso aan dhaho oo dadka kala baxayso oo habeen madow askar u soo dirayso oo malaynaa hirto inuu jiro inaan maanta si xaqiiqa u aragnana ayadana waa arrin kale oo lama filaan ah. sida aad sheegteen madaxweynaha dalka iyo dadka halkan fadhiya qaraabanimo kala fogeymayso colaado dhexdooda ma taalo dhibaato uma geysan waa ku farxeen waa taageereen waa garab taagnaayeen naftooda u huraayeen inay maanta guryahoodii waayaan oo madaxweynuhu sabab u noqdo arrintaas wax aad looga xumaado waay adinka ka hor dad badan aa noo yimiday oo duruuftan oo kale ay ku soo dhacday annaga waajibkana saaran waxa waaye dadka madluumiinta ah inaan garab istaagno arrintaas annaga noo fiican tahay ahalkeena u fiican tahay mustaqbalkeena u fiican tahay dowladnimadii u fiican tahay maxaa yeelay annaga maanta meel waxaan soo gaarnay warkeen in la dhageysto ay suuragal tahay haddaan kalmadeena idinkala cabsanno waajibkuna wallahi ma gudanin marka waxaan idinla joogno oon howlaheena u soo daynay waxa waaye kalmadeena inaan idinku garab istaagno tilaab kasta oo aad u baahantihiin oo aad nooga baahantihiin inaan idin sheegno inaan idinla garab taaganay. sida saaxiibaday sheegeen runtii maanta adeer Xaaji Cali Iimaan oo ka mid ah dadka ugu qiimo badan dadka magaaladan jooga inuu maanta idin soo horkaco oo halkan yimaado oo ka cabto waxyaabay nagu taa dhammaanteen. madaxweynuhuna arrintaas waa fahmi karaa waxa ay culays leedahay marka waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu arrintan dhulka dib inuu ugu laabto hadday shalay la fududeed hadday wax kale uga muuqdeen maanta halkaas ma joogto maanta dhulku wuxuu joogaa dowladnimadu inay u dunto halkaasuu taagan yahay. sharci ahaan haddii la yidhaahdana dhul dowlad ma iibi karto ma gedi karto shaqana kuma laha sharci islaam mid noo qoran mid adduun yaalla dowladdu waxay leedahay dhulkan waa kaa qaaday kanaan kugu bedelay meesha ay kaa qaadana wax la yaqaano inay ku dhista waay gedid kuma jirta meesha arrintaas inaan fahmnaa la rabaa. dhul dowladu ma gedi karto ma iibi karto waxay leedahay meeshaan aad degantahay isbitaalan ka samaynaa iskuulaan ka samaynaa jidaan ka samaynaa meel kalaan ku siinaa dowladda intaasay leedahay weligay dowlad dhul iibinaysa anima maqan inta hadda ani aan jiro 60 jir ah laftigeyga ma yari
yaa laga iibinayaa ganacsato xoolo haysato aan ognahay xoolaha ay haystaan haddaysan shaqayn ay cunaan intay ka dhintaan waxay cunaan haystaan ay ka bixinayaan dad quutulyom aan haysan gurigay ku hoydaan aan haysan dad badan hadda annaga waxay nugu handadaan waxayna dhahaan war soo adinku murashaxiin maahidina soo cod ma rabtiin ha cod waa rabtanaa laakiin waxaan ku qaadanaynaa in dadka masaakiinta iyo gabdhaha masaakiinta la jirdilo oo ganacsatada tuugada ah xaraamiyaasha ah ilaahay ka fogaaday ceebta Soomaali u keenay inaan ka baqno sidaas ay naga sugaan hanaga sugina annaga xilna waa soo qabanay haddana haddii ilaahay na siiyo waa qabanayna ilaahay idinkiisa laakiin ma dhacayso dad madluumiina inaan ka leexano annaga ma dhacayso arrintaas xasan sheekh colaadno ma dhexayso waa saaxiibkeen waa walaalkeen bariya koolaan wadaadada kula jirna laakiin waxa la taagan yahay war waxaanu dowladnimada sax u mahay ka joog maanta meel lagu mashquulo dhul ma joogto meel lagu mashquulo difaaci joogta dalkii shabaab qabsaday waa soo qabsanaa ciidanku waa kala daatay hadda gabadhaas laga sheekeynayay oo ninkeeda la dilay oo hooyadeed la dilay oo aabaheed la dilay oo shabaab dilay midka la dhashay ama midka yaqaana see u dagaalami karaa isha ma dagaalami karo askariga la soo diray ee la yiri soo barakaci gabadhaasi waxa lamid ah ma fikirayo miya aqligii aawo in maanta gabdho Soomaaliyeed ay madaxa ku soo xirtaan karfan askartu ma fahamsan yihiin madaxweynuhu ma fahamsan waxa ka soo socda meesha culimada Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed inay garab istaagaan dadka dulmanayaasha ah ee maanta victimka u ah dawladda maanta waxa laga hadlayaa shabaab ma waxa laga hadlayaa dawladdii dalka loo doortay oo dadkii barakicinaysa ayaa laga hadlayaa culimadu marka waa inay mas'uuliyadooda qaataan diintii ilaahay u dhiibay mas'uuliyadooda inay ku qaataan ganacsatada waxaan leenahay shaqada aad ku jirtiin shaqo fiican ma aha jooji iimaanka iskiliya barakicina ahalkiina qabiil la arkaba deegaan kastaba waxa loo diray qaraabadiisa asaga gadanay yani nasiib darada meeshan ka dhacday ugu dambeyntii waxaan leenahay dadka la xiray oo la jirdilay oo waayeelka ah caruurta ah haweenka ah halaga soo daayo xabsiyada marka aad iyo aad u maasantiin waa idin garab taaganahay habeena maalin idin garab taaganahay aayadaasaan ku soo gabagabeynaya كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته